شعبك يا مدح ضبا وهو الرئيس مدحوين إسماعيل عمر جيلة ويدين وقلاضي ناسين نبض شرف له أذوق مد نقطان ضدك رير على عدة يجوا يدين كسر دويه جعم فرن ولا التنمذا يدين موجينا أيدين لقى بصدان أنت يراد ويهيستين وعن لنا هاي ويماتين أول كاس نوانو هينا وأنا وياي إن قفكم مركو قحوتي هاي دي بدن تاي وأنا وياي دلك هذا هو مركات كم مقن تاي نيتا واحد دي بدن لكن قحوتي نمدو عيب معهن وحكينا الدن وحكينا الظروف ووقت أن ولقيس جرين وكمل جارة ولا قبحه وآمن سنة إن كستو هل كان أدنول في عن كويستان أمني أد كويستان قاركين لقيا بين الشغل كويستان حقوق أدلادهين أدنا مركا قدام بيسا ماشي أتكويلي كرتان نرول وارتا وحي تايدلكين هوي marka hore waxaan rabaa horta inaan idin sheego anigu intaan ra'iisul wasaaraha noqon ka hor halkan waxaan xasuustaa hay'adii aan u shaqeynayay markaan iri meel cala cadda leeyahay xafiis ka furanayna waxay yiraahdeen halkaas dhaqaale loo heli maayo hay'adaha deeq-bixiyaashana wax bixin maayaan laakiin maadaama halkan aan ku ogaa dad Soomaaliyeed hadafkayga markaan uu ahaa geeskan Afrikada soke oo aan anigu ka shaqeynayo mas'uul ka ahaa meel walba oo dad qaxooti ah oo Soomaaliyeed ay joogaan inaan wax gaarsiiyo sidaas aan horta waagaas ku imid meeshan la yiraahdo cala cadde waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadii aan bilownay inay sii ballaaratay dadkii Soomaaliyeed oo ila shaqeynayay inay halkan qaarkood fadhiyaan qaar kalena ay ku soo beeraan idinkana ay muuqatay in noloshiina intii ka sii hagaagsan tahay runtii wax lagu farxo marka anigoo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed oo imid Djibouti waxay la noqotay ceeb inaan ka noqdo anigoo idin soo salaam sababtoo ah dawladdu uu hogaamiyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidaad ogtihiin waa dawladda shacabka maadaama ay tahay dawladda shacabka idinkuna tiin qayb kamid ah shacabka Soomaaliyeed idinka ayaa xaq u leh dawladnimada sidaas ayaan idinku imidaan idin soo salaam intaas ka soo waxaan rabaa inaan maanta idinku bishaareeyo sidii aan ra'iisul wasaaraha u noqday oo aniga madaxweynuhu bilawnay inaan dalka ka shaqeyno dad badan oo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku nool ayaa ku soo laabtay dalkii waxay mid qaxood dad badan oo maxaabiis ah oo ka keenay Ethiopia qaaran ka keenay Libya qaaran ka keenay India qaaran ka keenay Seychelles qaaran ka soo wadna Tanzania qaaran ka soo wadna Oman waxaan go'aansanay dadku siday u kala dib badan yihiin inaan ku bilowno waxaan ka shaqeyn doonaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhibaataysan aan isku dayno hadii Ilaahay yiraahdo inay gacanteena gaarto inta halkan aad joogtaan maadaama aad iskuulle haysataan waxaa la rabaa carruurtiina inaad iskuulle u dirtaan waayo dalkiina wuxuu marayaa meel wanaagsan mar dhowna waad ku soo noqon doontaan marka aad dalkiina ku soo noqotaanna waxaa la idinka rabaa carruurtiina inay leeyihiin xirfad si isla markiiba ula falgalaan dalka qaybna uga qaataan waxaad maqli doontaan kuwa badan oo Facebookyada wax ku qora ama idaacada ka hadla oo yiraahdo dalkiina wuu xun yahay dalka Soomaaliya meel xun buu joogaa waa kuwii 28 sano dalka dumiyay ha dhageysanina waxaan idinku imid anigoo ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed idinkoo qaxooti halkan cali cadda ku ah waxay tusaale ka tahay isbeddelka dalka Soomaaliyeed ku dhacay
sababta aan idinkugu imid waxay tahay inaan aaminsanahay inaan ra'iisul wasaarihiina ahay aan ahay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed aanan ahayn ra'iisul wasaare Muqdisho ama ra'iisul wasaare qolo waxaan aaminsanahay in xanuunkeyga yahay farxaddiinuna ay farxaddayda tahay Soomaaliya way ka qiimo badan tahay 27 sano la soo dhaafay way ka sharaf weyn tahay sida hadda naloo yaqaan way ka macno badan tahay waxa ay dadka iyo dunida u garanayaan waxa soo socota Soomaaliya cusub oo adeertiyaad aad ku soo kortay waxaan ku rajaynahay ku qalbi fiicanahay hubaa ku niyad fiicanahay in mar kale la dhihi doono Soomaaliya waa dalka Afrika ugu horumarsan waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum.